بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وبعد الحمد لله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية جعلها هنا حوان كان لبعضنا أسئلة wadaagno ah يعني حامل كورك maadaama hore waxa ugu soo aragnay error detection keena sameyn karno marka ciwaankeen labaad hore waxa usoo baranay xaamin koodkaaga inuu ka kooban yahay database-kaaga oo lagu daray database-kaaga waxaan dhahnay xaamin koodkaaga wuxuu ka kooban yahay markaa ku shaqeynayno 7 bit xaamin koodka markaa ku shaqeynayno wuxuu ka kooban yahay 4 database iyo 3 database ah database-ka isticmaal doona waa D0 D1 iyo D2 D3 database-ka isticmaal doona waa B1 B2 iyo B4 weeyaan baritin waxa u kala qaadana laba qaybood oo odd iyo even kala ah marka qaabkana u buuxin doona aan dhahnay marka waa B1 B2 D0 B4 D1 D2 iyo D3 qaabka in loo buuxiyo qaacidada noo sahlayso ah b waxay ku limid tahay 2 power n godka koowaad inaan buuxinaa matarana oo kale 0 soo qaado waxaana 2 power 0 ku limid ah 1 godkan god b1 aan gelayso godka labaad wuxuu noqonayaa 2 power 1 2 power 1 it means 2 godkan labaad b2 waay godkan afraad aan soo saarnaa waxaa leenahay 2 power 2 oo ku limid ah 4 godka afraad waxa galaya markaa b4 aa galaya therefore d0 d1 d2 d3 aa garab dhigay markaa baritigan marka yani andhiga xaamin koodkan wuxuu sheegay in kala raado rw xaamin kala raado wuxuu sheegay in b1 kaaga ugu xiran tahay d0 d1 iyo d2 this is d0 this is d1 and this is d3 saddexdan god inay ku xiran tahay marka saddexdan god waxaa ku xiran b1 qiimaha yeelanaysa marka saddexdaas ku xiran tahay b2 qiimaha yeelan doonta waxay ku xiran tahay d0 d2 iyo d3 b4 qiimaha yeelan doonta waxay ku xiran tahay d1 d2 iyo d3 Therefore, for example, we have like this problem 1011 databit kana مثلا لسي databit kana مثلا waxaan u kala xaamin kood ahaan u diyaar loo yahay ku dhaafay marka uu reeso waxaan isticmaalnaa marka even parity isticmaal not even parity isticmaal even parity marka isticmaalna marka b1 taad waxay kula mid tahay hore u soo sheegnay Soomaaliya d0 iyo d1 iyo d3 d0 da qiimaheedu waa meeqa waa 1 d1 keena qiimihiisu waa meeqa waa 1 d3 qiimihiisu waa meeqa waa 1 even parity ku shaqeynana aan dhahnay 1 plus 1 plus 1 waxa weeyaan 3 da haysana marka ma aha yani even parity ma odd parity waa si even ugu dhigna marka waxa u baahanahay 1 dheeraad u baahanahay 1 kaasna waxa inoo la mid ah b1 ka inoo la mid marka so b1 waxa ku buuxinaa 1 aan ku buuxinayna b2 asagana helna marka waxa noqonaa d0 d2 iyo d3 d0 dana waxa haysana d0 dana maanta waxa haysana 1 d2 dana maanta waxa haysana 0 d3 dana waxa haysana 1 101 it means 1 plus 0 plus 1 oo kula mid ah 2 maadaama haysana marka wax la yiraahdo p2 deena even parity marka ku shaqeynno qaybta koowaad ah waxba tira kale u baahan waxaa marka 0 u qaadanaa marka so b2 deena waxay inoo noqon doontaa 0 inoo geli doono godkan labaad godka saddexaad asagana b4 waxay kula mid tahay d1 d2 d3 d1 taa maanta waxay kula mid tahay 1 d2 da waxay kula mid tahay 0 d3 da waxay kula mid tahay 1 ay kula mid tahay 1 plus 1 marka waxay ku lamid yihiin 1 plus 1 waa 2 na waa even number maadaama wax tira kale u baahan waxaan inaa marka 0 qaadanaa marka waxay inoo noqonaya marka b4 tan waxay inoo noqonaya marka 0 inoo noqonaya 1 kan waa d3 deena oo hadda taa inoo siiyay d2 deena 0 d1 keena 1 awi may d1 keena ha d1 d0 da waxaan la siiyay 1 kaasna waxa ku buuxsan doonaa marka d1 godkiisa main so this is a d1 why not can work so d1 d2 d3 d1 d2 d3 101 d0 then waxay kula mid tahay 0 marka kula mid tahay marka so waa marka ku shaqeyn even parity odd parity hadda ku shaqeyn qiimaha inoo soo baxay 011 ah marka imaanka marka mar raba inaan ku daro video waa si fiican u heli kartaa si fiican ugu daawo waxaan rabaa imaanka labaad error detection kale oo sameeyana isla fahanna marka error detection مثلا أنا نسيب كل حرف لو كله if 7 bit هامين كود هذه هامين كود 7 bit كوش قينا يقول يعني حرف وحلي يعني that bit كيسو يعني هامين كود كيسو هو 10110111 ويا مثلا even parity على وش قيا وحلاقة راه مركي أنا identify whether the received code كلا هلا إنه قلدنيا إنه صحيح هذه وقلدنيا بس كقلدنيا شيء يقولك مركا وقالت كجرا because أنا هامين كود صوته استعمال بوحي هاد يعني
noise ka sameysmo receiver-kaaga iyo transistor-kaaga inta ka dhaxeeyo transmitter-kaaga iyo receiver-kaaga inta ka dhaxeyso noise ka sameysmo data isbedeli kartaa isbedelkaas haddii uu dhaco marka inaan soo saari karnaa waxaan isticmaalno anaga dhanba error detection-ka iyo wax la yiraahdo harmonic code-ka marka harmonic code-ka marka ku shaqeynayna marka hore waxaan usoo barnay marka godka inuu yahay B1 godka xigay inuu yahay B2 godka xigay inuu yahay D0 godka xigay inuu yahay B4 godka xigay inuu yahay D1 godka xigay inuu yahay D2 last digit is D3 so D3 deena marka anaga marka qiimaha la siiyo meeqa table kan 7 god inuu ka kooban yahay mar walba qasoo mar 1 2 3 4 5 6 7 sida taa ugu soo buuxi mar waxay noqonaysaa 1 0 1 1 0 1 1 يعني error detection si aan u sameeyno marka errorka boos ku jira si aan u ogaano first of all waa inaan naqaana marka B1 uu ku xiran yahay marka B1 kaaga wuxuu ku xiran yahay D0 iyo D1 iyo D3 uu ku xiran yahay waxaan ku shaqeynaa anagana ciwaan kor maxaan wala soo siiyay maxaa ku shaqeynaa la dhahnay even parity ku shaqeey maadaama la dhaha marka we have to qiimaha helena marka waa inuu noqdo even number inuu ahaado weeyaan marka even number inuu ahaado weeyaan so B1 meeqa haysanaa marka qiimaha haysato sidoo wada qor marka B1 meeqa haysataa meeqa lagu siiyay 1 D0 meeqa haysataa D0 da waxaa haysanaa 0 okay D1 kaaga asagana meeqa haysanaa waxaynu haysanaa asagana 1 D3 da asagana meeqa haysataa 1 so 1 0 1 1 isku dardar waa meeqa marka waa 3 maadaama taa marka even number biya helna mas odd number aynu soo baxay tirakisi soo baxay soo tirakisi maadaama soo baxday B1 ka wuxuu ku limid yahay 1 ku limid yahay markii tirakisi hadii ku soo baxdo ma adigu odd ku shaqeey adigu yani even ku shaqeynayso odd ku soo baxo 1 u qaado marka okay B2 asaga raadina marka B2 maxaa lagu helaa marka B2 waxaa lagu helaa D0 D2 iyo D3 hore u soo barana soo meen so B2 da lafteeda qiimadeeda maanta waa naqaana waa meeqa marka waa 1 D0 qiimaheedu waa imisa waa 0 okay D2 qiimaheedu waa imisa waa 0 asagan D3 asagana qiimihiisu waa imisa waa 1 soma then qiimaha haysana marka even miya mas odd waa marka 1 plus 0 plus 0 plus 1 waa even number ana ku shaqeynayso meen even state maadaama ku shaqeynayna marka yani B2 geena wax contradiction ma ka jiraan marka 0 ku limid yahay marka waxba yani problem kama jira asaga problemka koowaad wuxuu ka jiraa B1 okay let's get B4 B4 asaga markii ku xinaajin marka D1 D2 iyo D3 it implies that D4 qiimaha hore ka soo qor marka D4 meeqa haysan anaga marka 1 haysan Soomaa 1 D1 qiimihiisa asagana waa imisa waa 1 okay D2 qiimihiisa waa imisa waa 0 D3 qiimihiisa asagana waa imisa waa 1 so maxay kula mid tahay fiir marka 1 plus 1 2 plus 0 2 plus 1 it will be 3 marka anaga even parity maadaama ku shaqeynayna odd number ay noo soo baxay odd number anaga ma ogoli marka B4 taal waxay kula mid tahay markaas 1 ay kula mid tahay marka maadaama yani tirada laga rabo maadaama imaawis because even waxa noo soo baxay odd number ay noo soo baxay anaga even aan ku shaqeynay wana qoranayna marka halka markii inuu taagan tahay marka yani problem ka soo soo saarto waxa ilo qoraa marka B1 B2 and B4 B1 taal waa imisa marka waa 1 B2 taal waa imisa waa 0 B4 kaagan waa imisa waa 1 intaana inoo soo baxda marka intaano base 2 ah marka waxa u bedeshaa base 10 u bedel marka base 10 hada u bedelna waa 5 soo ma 5 teeda kala xataa waxa si fudud ugu soo saari kartaa scientific ugu soo saari kartaa baar scientific gaaga okay let me clear it mode aad taabanaysaa mode marka aad taabato number 4 aad taabanaysaa base n number 4 tirada hadda haysan anaga marka maxaa weeyaan waa binary number soo ma binary waa kana marka kan ugu horeeya waa decimal hexadecimal binary octal waa binary taabar binary marka taabato binary number ka haysto waa meeqa marka 1 1 0 1 haysan soo ma noo gali marka 1 0 1 noo gali marka 101 waa ku qornay then waxaana marka u bedelna marka decimal ahaan ka dhiganaa decimal taabo kali maxaa ku soo bax marka 5 ku soo baxda marka so it means godkaaga shanaad ay error ka jira marka godkaaga shanaad oo error ka jira aw godka shanaad marka so this was 1 2 3 4 5 6 7 something good waa inuu am todobada good waa ka saa marka maadaama la 7 bit timing code godka shanaad markii yaa marka waa D1 ka waa marka D1 keena marka waa ina u bedelnaa qiimo ah 0 ina ka dhigna waa marka maadaama asaga uu problem ku jiro aan ku shaqeynaa hal mar marka midna asaga aan ka dhigno kale maadaama 1 uu yahay opposite-kiisa ka dhigaa hadii uu 0 yahay 1 ka soo dhig macnaha
يعني aniga binary number ku shaqeynayna numberka 1 hadii uu qaldan 0 waa saxan hadii 0 qaldantaan 1 waa saxan option saddexaad ma jiro iska jaabantaa marka soo hadda midna aan ku shaqeyna marka d1 booskeeda aan 0 aan ka dhigno wax error inoo soo baxay aan fiirina marka okay let us draw 7 columns okay these are b1 sorry then next this will be b2 inta waxaa ku yeesanaa d0 halkan waxaa ku yeesanaa d1 halkan waxaa ku yeesanaa d2 oh b1 b2 d0 then this will be b4 this is d1 this is d2 and the last one is d3 okay no number 1 2 3 4 5 6 and 7 qiimaha inoo soo qaad marka d1 waxaa iga dhigtaa 0 u bedel marka d3 meeqa haystaa 1 sidiisa igu soo qor labada dhinac loo jeedaan fidaya d1 waxaa inoo soo qaadaa 1 6 ka booskiisa ama d2 waxaa inoo soo qaadaa 0 laakiin d1 waxaa u bedelanaa asagoo keliya marka 0 waxaana u bedelanaa marka inta kale waxay noqonaya 1 0 1 1 sidoo nagu soo celi bal aynu fiirina cadaytaa marka wax error miyaa jira marka b1 kaaga wuxuu ku lamid yahay d0 d1 iyo d3 it implies that b1 laftiisa meeqa haysanaa marka b1 waxaa haysanaa 1 d0 meeqa haysanaa 0 d1 meeqa haysanaa 0 d3 na meeqa haysanaa d3 is 1 so even parity aan ku shaqeynaa maadaama even parity aan ku shaqeyn meeqa helnay 1 plus 0 plus 0 plus 1 is 2 2 maadaama inoo soo baxda marka 2 maxaa waay marka 2 waa even number waay so b1 ka waxay kula mid tahay marka waxa u baahay ma qabno 0 inoo qor marka okay no contradiction is there b2 idan maxay kula mid tahay marka d0 d2 iyo d3 d0 iyo d2 iyo d3 maadaama kula tahay marka d0 da qiimaheeda ma amaanta haysan waa meeqa marka waa 0 d2 meeqa haysanaa waxaynu haysanaa 2 d2 waxaa haysanaa asagana 0 d3 asagana waxaa haysanaa marka 1 ayaa haysanaa waxaa ka tagay b2 qiimihiisa isagana qortid b2 qiimihiisa waa meeqa 1 asagana inoogu dar marka 1 plus 0 plus 1 it will be 1 plus 0 plus 1 it will be 2 also so b2 idan wax problem ka jiro 0 problems waay marka okay let's get b4 asagana sidoo kale soo saarnay b4 marka wuxuu ku xareeyaa marka d1 d2 iyo d3 d1 d2 d3 maadaama ku xareeyaa marka asaga laftiisa horta qiimihiisa inoo soo qor b1 meeqa b4 meeqa haysanaa 1 ayaa haysanaa d1 qiimihiisa waa imisa d1 waxaa haysanaa 0 d2 qiimihiisa inoo soo qor d2 qiimihiisa waa imisa waa 0 okay d3 qiimihiisa waa imisa waa 1 so isku soo wadagay intaan marka 1 plus 0 plus 0 plus 1 even number inoo soo baxay marka b3 dan marka waxay inoo la mid tahay marka 0 inoo la mid tahay marka qaacidada marka maxay ahayd marka si yani errorka loo soo saaro b1 b2 iyo b4 isku garab war b1 kaaga waa imisa waa 0 soo ma b2 da waa imisa waa 0 b3 da waa imisa waa 0 so it means there is no any error no error is there wax qalad dhan ma jira tirta marka inoo saxantaa daatadeena marka wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh